wax badan ka baro xayawaanka wadda badan ee maroodiga. Maroodiga oo ah xayawaan weyn oo awood badan Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala ku manaystay, kuna nool dhulka kaymaha leh, isla markaana leh dabeecad wanaagsan oo uu bini'aadamka kula noolaan karo, ayaa leh mucjisooyin aan la wadaagin xayawaanaadka kale. Marka hore, maroodiga waa xayawaanka ugu culus xayawaanada, wuxuuna miisaankiisa gaaraa 6,350 kilogaram, dhererkiisuna waa 4 ilaa 5 mitir. Ku darso ilmaha yar ee markaa dhasha, maroodiga waa 90 kilogaram, wuxuuna ka bilowdaa 1 mitir. Gacanta dheer ee uu leeyahay maroodiga waxay u taysan, kuma eka urin iyo neefsasho kaliya ee wuxuu u isticmaalaa cabitaanka iyo jaridda dhirta uu afka hoose ugu gudbiyo. Sawaxan cod aad u dheerna way leedahay gacanta. Maroodiga wuxuu wax ka maqli karaa fogaan dhan 8 kilomitir. Abad maroodi la miisaamay ayaa culayskiisa gaaray 10,886 kilogaram. Dhagaha waaweyn ee maroodiga kuma eka maqal ee waxay kaloo sameeyaan nidaam u shaqeeya sida qaboojiye oo kale, waxayna qaboojiyaan dhiigga maroodiga marka uu lulayo, isagoo jirka intiisa kala gaarsiiya. Cimri ahaan, maroodiga noloshiisa waxay u dhaxaysaa 60 ilaa 70 sano, wuxuuna cunto ahaan u isticmaalaa maalintii 136 kilogaram. Wadamada Afrika uu kaga nool yahay ayaa ah 37 wadan oo ah wadamada Saxaraha ka hooseeya, wuxuuna jecel yahay dhulka hawdka ah. Dhanka xuduudaha, wuxuu aad u joogaa wadamada Namibia iyo Mali, halka Aasiyana uu ku badan yahay dhulka roobka badan ee Hindiya, Nepal iyo meelo kale oo bariga Aasiya ka mid ah sida Thailand. Maroodiga wuxuu leeyahay jir dareen badan oo xitaa haddii uu tuqsi jirkiisa fuulo uu dareemayo. Maroodiga wuxuu ilmaha uurka ku sidaa wax ka badan inta xayawaanaadka kale ay sidaan, waana wax ku dhow 22 bilood. Maroodiga wuxuu u socdaa qoys yaryar, mararka qaarna ilmaha si jimc ah ayay u nuujiyaan. Waxaa la yiraahdaa gacanta maroodiga waxay leedahay 100,000 oo murqo kala duwan, kuwa uu isticmaalo urinta, cabitaanka, qaadashada, soo jiidida, neefsashada. Maroodiga ku nool Afrika wuxuu leeyahay 2 faro, halka kuwa Aasiyana ay leeyihiin 1, waxayna ku leeyihiin halka ugu dambeysa ee gacanta dheer ay kaga xiranto. Maroodiga wuxuu ka kantaroolaa dhammaan jirkiisa dhagaha, sidoo kale waa calaamad muujisa dhawaaq markay hore u socdaan. Cilmi baarayaal ku xeel dheer maroodiga ayaa sheegay in maroodiga uu baran karo wax kasta oo lagu tababaro, wuxuuna noqon karaa waardiye lagu kalsoonaan karo. Maroodiga oo ah geesi aan baqin ayaa waxa uu aad uga baqaa shinnida.